لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي بان كو حمدنينا إنك سو قيب قليي صلاة مغرب إن جمع الله سو حاضرنا كدبنا إلهي وحنا إذمي إن فريسنا المساجد كدحديثا ومجلس كان عن دينتي أنا مع نسكو براروجين إنه أن كوض قيب الله مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير النبي صلى الله عليه وسلم حديث معنيثها وحو يري مجلس كوناكسن إلهي اللوغو دوانايو إلهي كو دوينايا دينتا إلهي اللوغو برانايو آخرة اللسكو براروجنايو إيا مجلس كحن غفلة إيا دين لآنتا إيا معصية إلهي كاد دارينا يبو النبي كبحي مثل عجيبة مثال لدنا إلهي بسوقاتا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا سوقاتا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أمثاش قرآنك ويكون بدنتها لماذا؟ لأن بني آدم مثلك وحكو فهما سادر تيد نبينا عليه الصلاة والسلام مجالس ونكسن إله اللوغو دوانا دين إله اللوغو برانا مساجد أي علماء أي نوغو قبنayaan haday tafsiir tahay haday xadiis tahay haday fiqh tahay haday muhaadara tahay haday wacdi tahay haday dhiirigelin iyo baraarujin diinad ay tahay midaalka uu nabigu ka bixiyay waa sida ninka cadarka miskiga xambaarsan ee cadarka miskiga iibinaya ninka cadarka miskiga udgoon iibinaya buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ima waa inaad ka iibsataa ima waa inuu ku siiyaa ima waa inaad udgoon ad carfi wanaagsan iyo udug wanaagsan agtiisa aad kala noqotaa majliska xun ee ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu caasinayo ee dadka muslimiinta lagu xamanayo ee ilaahay qeyrkii lagu weyneynayo midaalka uu nabigeenu ka bixiyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kanaafikhil kiiri waa kan biraha tuma ee dabka ku afuufa buuqa weeyaan kaana biraha markuu garaacayo uu afuufayo dhimbiile ayaa ka duulaya dabkaas dhimbiilahaasi ama dharkay ka gubayaan buu nabigu yiri ima majliska waxaad kala soo kacaysaa raayaha xun oo qarmoon oo natina ayaad kala soo kacaysaa buu rasuulku yiri marka majliskan saddexda buu nabigu ku mithaalay sallallahu alayhi wasallam sida ninka cadarka iibinaya ima inaad cadarka ka iibsataa ima inuu cadarka ku siiya ima inaad udgoon
carfi wanaagsan adoo jirkaaga uu ka uraya agtiisa aad ka soo noqotaa majaalistan waa caynkaasay la mid yihiin buu nebigu leeyahay sal alla alay wasalam ima waa inaad halkaa wixii khayr laga sheegayo aada wax ka faa'iidaa haddaanaad waxba ka faa'iidaysan oo mowduuca laga hadlaayo aada fahmi weydana majliskan faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaa kala fadhiistaana ma hooge sidaan ayakaba ugu naxariisteen ugu dembi dhaafay buu ilaahay malaa'igta ku leeyahay addoonkaa iskala fadhiyey ee waxa meesha ka socda ee khayr aan ka warqabine la fadhiyeyna la fadhigaas isagana ugu dembi dhaafa buu ilaahay leeyahay jamaaco saxaabada ka mid ah ayuu nebigu ku maray meel ayakoo fadhiya markaa buu nebigu ku yidhi maxaa meeshaynii fadhiisiiyey iyaakum waljuluusa fi turuqaat jidadka aada fadhiisanaysaan baan iniiga digayaa markaa bay saxaabadu yidhahdeen meel kale oon fadhiisanoo ku sheekaysanna ma lihin markaa buu nebigu yihi waa hagaage meeshaa meelaad kaga maaramtaan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa iska siiya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shareecadda islaamku waa shareecad dhammaystiran weeyaan xataa dariiqii haddaad ka maarmi weyda jidadka inaad fadhiisatid baa lagu leeyahay dariiqa xaq buu leeyahay xaqiisa sii haddaana dariiqa xaqiisa aanad siin karaynin dariiqa inaad fadhiisato kuma bannaan maanta innaga mujtamaceennan inta masaajidda fadhida iyo inta maqaaxyaha fadhiya midkee badan inta maqaaxyaha fadhiisanaysaa badan kam yaa cuquul iyo awqaad lagu bixinayaa maanta dariiqada dhexdooda saxaabadii nebigu wuxuu ku yidhi dariiqa fadhigiisa meel aad ku bedelataan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa siiya mariya dariiqa xaqiisa markaasay yidhahdeen nebi allow dariiqu xaquu nagu leeyahay bal noo sheeg markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay qadu lbasar maxaarimta gabdhaha iyo ajaanibta dariiqa maraysa indhihiina ka laaba buu rasuulku yidhi ha eegin oo ha odhanin wazayannaaha linnaadiriin waa inaad tidhaahdaa waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim mu'miniinta waxaa la amray dariiqa markay marayaan inay indhahooga xafidaan haddaad indhahaaga xafidid qalbigaaga wixii ku jiray baad xafidaysaa laanna isha zinadeedu buu nebigu uhi waa daymashada dhegta zinadeedu waa dhegaysiga carabka zinadiisu waa sheekada gacanta zinadeedu waa taabashada lugta zinadeeduna waa u socodka intaa oo meelood oo jawaarixa ayay zinada ka bilaabantaa qofku intuunan zinadii weyneed ku dhicin daymashadu waa zino oo waa zinadii aragga buu rasuulku yidhi haasaawuhu waa zino waa zinadii carabka dhagaysigu waa zino waa zinadii maqalka qabashadu waa zino oo gacantu waxay zinaysan waa goorma markaad gabadha ajaanibka aad iska taagatid markaa nebigu wuxuu ka bilaabay dariiqa xaqiisa qadu lbasar indhihiina laaba buu rasuulku yidhi sal alla alay slam indhahana ma laabo oo ma xafido ilaa qof mu'mina mooyaane waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim qadu lbasarka waxaa lagu amray waa dadka mu'miniinta aragga ma ilaaliyo ilaa qof iimaan la mooyaane kafu ladaa buu nebigu yihi dhibaat dadka dariiqa marayana gacantiina ha ku dhibina ishaadii ha ku dhibin gacantaadii ha ku dhibin raddu salaam dadku hadday ku salaamaan salaamta u celi walamru bilmacruuf dadka wanaagga fara buu rasuulku yidhi wannahyu can ilmunkar dadka jidka marayaad la kulantaan wax sharcigu inkirsan ayagoo dhaqankooga ay ka muuqatana ka reeba buu nebigu yihi munkarkoo ka zuuliya suuqa magaalada madiine nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo maraya ayuu arkay inaan dhallinyaro oo reer madiine ah fargal dahabuu gacanta ku sidaa deedna markaa buu nebigu ka siibay dhulka ayuu ku tuuray nebigu wuxuu yidhi ayacmidu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadihi midkiin ma u kasayaa dhimbiil naara intuu qaato inuu gacantiisa u gashado markuu ka tuuray waa macnuhu waa maxay ummadayda raggeygana buu nebigu yihi dahabka inay xidhaan waa laga xarimay haweenkoodana waa loo xalaaleeyay buu rasuulku yidhi usaliya nabigeena sala allahu calayhi wasalam sidaasuu uga siibay yarkii yara fargalka dahabka ah innaga maanta imisaan munkar arkaynaa ma zuulinaa carabka ma ka zuulinaa may gacanta ma ku zuulinaa may qalbiga ma ka inkirnaa may bal waxay iska noqotay nolosheenni maanta waa iska caado weeyaan waa iska caadi waxani salaadoo laga tagaa waa iska caadi dadku agtaada macsiyo ku sheekaystaa waa iska caadi dhallinyaradii hor sidee doonaan dharka u xidho timahana see doonaan u xirta waa iska caadi waa caadi buu ku leeyahay waa mujtamac oo dhan baa sidaa noqday maxaa la qaban karaa
وزوليني النبي صلى الله عليه وسلم منكر كمركو أركا قعنتيسو النبي ولا تجاي قعنتيسو كجسار الفرق الكي ده نبلكو كتورة مركز النبي يقولي متكين مكرا يا دمبيل نار أنتو قادين وقعنتك قشطوا هذا الكامر كوري النبي قوس كذا دقاقي أي صحابة كوي رادن يركي يرى مركو النبي قلت تجي كذب ذهب كذا قاضي انتفع سكة لو وقف إذا سوق انتفاع ده إيبي عداد وانتصي مركز الصحابي وحيري لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن أنا قادم بدو قادن مايو ما دام النبي محمد قعنتي سوي كجسيبي أقولك كل دفتي أقولك كل توري والله إن أنا قادن يبوي هذا إنه قاطع وإيبيو ولعكتي سنة ومارك تاني ملك لو استعماله كحرام ما هنا ومباح وأبنا انتهي إنه قشدون بلغ حرمي لكن قدرين النبي محمد أي قدرين أيام بويري والله إن أنا قادن يبوي وايو نبي محمد بايقت توري ما دام النبي محمد قعنتي سدولك وكل توري والله ندي قادن ما يبوي قدرك النبي إنك كان الله نفهم سيء وصلي النبي صلى الله عليه وسلم عجيب تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة وأنت ذاك منه مطيع إلهي يا نبي جعيل ذو ما أنت مسلمين توشيغنا يا وعرب كان كأشهادنا لكن أفعاشنا هدي الله إيغو وأفعاشنا وخلاف سنتهي كتابك إلهينا وخلاف سنتهي سنة النبينا وخلاف سنتهي مركا جعيل ذا أن شيغنا وجعيل بين هذا النبي محمد جعشهي وهذا دعي لهي نبى نكو جعل يحيب أضعاي قصتكو سابسن نكي جعيل كي سأل لوغا شيكين جري قيس الليلة نحمرتي نكي مركا قيس أيا جعيل كي الليلة أي أواشي درادد markaasuu darbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha kamida waxa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar darbi buu dhudhunkanaya markaas lagu yiri warqaysow maanta waalidaadi ma waxay ku geysay darbiga inaad dhunkatid markaasuu uu qabbilo dal jidaari wa dal jidaar wama wuxuu yiri jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedo dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa leeyla ayaa degan oo jacaylka leeylan u dhunkanaya buu maalin kala la arkay isagoo ay haysto dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu saliday wuxuu yiri aqalkii leeyla ay ku jirto ka soo baxay uu ka soo baxay maxabadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nabigiisa aan jecel lahay sallallahu alayhi wasallam mujtamaceena iyo dadkeena iyo dalkeena haddii salaada la adimo magaalada intoo laga baaburada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho أي مساجد عمر ملحيد مساجدنا إنما قادينه بل وليس سوق لها يولورن لها أنا كنا هنتكلم جمع مسجد كيبون نجبو حيه كسر درر بالورن الصلاة جمع عدم هاكو حرنا لو كان حبك صادقا لأطعته أبدي جعلكم ودبك يا هي وضع لهيد إن المحب لمن يحب مطيع نبنيك وجعل هي بوضعي dhalinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaara isku ekeysiyaan kuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yiraahdo isku ekeysiyaan kuwa siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekeysiyaan kuwa nabi maxamed jecel nabi maxamed isku ekeysiinayaan magaalada madiina ayuu nabigu soo galay calayhi salaatu wassalaam wuxuu arkay madiina yahuudi la deganeed ansaar oo maalinta caashuro la yiraahdo soomaysa waa tobanka muharram weeyaan markaa buu nabigu ku yiri waa maxay yahuudu maalinkan ay soomayso markaas waa maalintii ilaahay nabi muuse uu ka badbaadiyay waa maalintii nabi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wa ala uu badda u dilaaciyay ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyay halaaga ee cadowgoogii fircoon la halaagay weeyaan nabi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukriya mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadii nabigeeyga baan ku dayanaynaa markaasuu nabigu saxaabadiisii ku yiri annaka uga xaqla muuse sooma caashura kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkan ku daray buu rasuulku yiri yahuuda muxuu nabigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay
mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaan baha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircawn wajeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa cashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaan yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyadii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarna alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka miduu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa oo dabeecad waxaa lagu yaqaana xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenkuu la kaftami jiray markaasaa dadka reer madiine o dhan waxay isku sheegeen gabdhihiinna julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecaddiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftamaa marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa madiine o dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninkuu nebigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayey ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayey ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabse binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cuhmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabse uu cuhmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagdaadii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inaku aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan beryahan moogtahay laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso
waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeed aabba la dhashay ama abtigeed hooyo la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya fasaqadu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan inagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo doona maaha abibakr cumar isagaa u doono u haasaaway inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta inaga xaggeena waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar usoo haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay war matu cagalu hayaa nagu camaynaya cumar baa socdo cumaan u bandhigay cumaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xafsa radia allahu canha nabi maxamed baa soo doonay calayhi salaatu wasalaam daadna markaa buu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yihi haa waan kuugu hayaa horta baan cumaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafiyuu siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistay uu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu yidhi nicima wa quratu caynin yaa rasuula allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaabuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkaan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu julaybiib ha uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaabuu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama wa quratu caynin wa quratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiine o dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigubaad kala noqotay inantayadii annaguna raalli baan kala noqonay
markaas saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi allow inantii Julaybiib waan siinay aro guurkii uu Julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxa dhacday fazca waxa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki lahay markaas la yiri nabi allah waa ninkee markaas uu Julaybiib awaya markaas meydkiisa la doondoonay waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhul ka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybiib anu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybiib anu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri waligeed ha ka gelin buu rasuulku yiri gabadh armala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam marka nabiga alayhi salaatu wasalaam qadarkiisa garanayaan qiimihiisa garanayaan nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa Madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yiri awrka ma iibinaysaa ha imisa inta way heshiiyeen markaa buu nabigu ku yiri soo raac awrka lacagtiisa ma ku siinayay waa nin reer baadiya ma garanay nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina wuxuu soo galay awrka inuu iibiyo hogaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaa buu nabigu degdegay maadaama uu nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaama uu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa oo daba bildhaansanaya markaa buu nabigu soo daymooday wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taagan oo awrkii ka iibinayo markaa buu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yiri war xagee soonigii kala iibsanay ma ninkii reer baadiya yidhi gama iibsan markaa buu nabigu waan heshiinay tamma albay qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda ila socotay kaliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igama iibsan markaa buu nabigu leeyahay war waan ka iibsaday muslimiintii reer Madiina oo dhan baa ku soo ururay wala isku dhageysanaya acraabigi wuxuu leeyahay igama iibsan nabiguna waxa uu leeyahay war waan ka iibsaday waan ka gatay iyo igama gadan ninkii acraabiga ay war inaad iga iibsatay marxaati ma haysata markaa buu nabigu dadka sidaa u eegay Khuzaymah ibn Thabit nin leeyahay oo reer Madiina soo boodo yiri ana marxaatiya buu inuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maragtaana awrka inuu ka iibsaday ana maraga furaaya markaa buu nabigu sidaa u eegay Khuzaymah markaa ninkan kale iibsanayna meesha ma joogine seed marxaatiga aniga aad igu qaadaysaa markaasuu yaa rasuulallah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu ku keenay baan ka rumaynay ma bini aadan aad baan u sheegay buu yiri ma hadal ma bayciga adoonkan in dhex maray baad been ka sheegay inaad ka iibsatay waxa ku rumaystay tirida aad tiri waan ka iibsaday inta baan ku sadaqay buu yiri markaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri maanta laga bilaabo Khuzaymah ibn Thabit saxaabiga la yiraahdo maanta laga bilaaba halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii ba ku filan buu rasuulku yiri markiiba nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyay shahaada ayuu siiyay shahaadatu Khuzaymah ta'dilu bi shahadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay Khuzaymah keligii ba ku filan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam laana saxaabadu waxay garanayaan nabi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi
ونبي محمد باسدا يدي بقولك بقول بعد قال هذا قريش هذا وضع مركز شيء مي كلا حاشا هي وحسر عنو نجا مسجدو ما سر بعد نجا وضع ينجا مسجدو مركي قف رن وشاقي اسكت دكتي أي اللبدو دي كسر نقدين بالليل كل كأير صار نقدين علي بايري وما وركي كان رمي سنة يا وركي نبي كان بني نبوجي نبي محمد بانوغير السر أن لنا هاي أي قبل داس قريش المشركين توضع السر تكسر قادا ما دام نبي محمد ويري ما وركي إنتر رميني أيان وركي نبي كان بين كسر قادا نبوي سونا كهلاك سنة ما داس دا كنا قلنا علي باكسر نقدي أو كل ردو يري سرتا أدنجا ودد نبي محمد باكوس شيء هدات سرتا هلكا صدق ويدد قامها هي كولا يوم بوكي مركي أركت اللبادن نديرنا تكموقتا يسد خبرك نبي محمد وصو شيء بقول أي أورو ميسيهين أي تري إيك هذه هذا بع أنت سيجي ستي مرت تمه أنت فرت تمه يجي تتعنا أي ورقة تعلق كسو صارت ورقدي بالنبي أوكي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله واتن قبل السرتي وضي ورقد النكي قري مساجد كالنبي قد احفظيا حلقات دقي سنة والله كفري والله أخريي رسالة داني وحي كسعتا حاطب ابن أبي بلتع وحي كسعتا قريش بي كسعتا وحي كور رمي مركا قريش كور رمي سرتي نبي محمد سرتي عيدك دولة الإسلام كسرتي دي بقول بيه مركز النبي صلى الله عليه وسلم مدب كساب بدل من رسولك هل كان عمر باجوجو مركبة كعويري يا رسول الله نكن منافقين نقول جرح السرتين قال هذا وش شيء أنا قرتك أقولني يقول فصح بوكي مركز النبي يقول عمر وكادي بيقول وكادي هذا دقيقة يا حاطب لبيك يا رسول الله ساسولي لبيك يا رسول الله سركع بوكي استاذ سرتينا إن قال هذا وش شيء تمحك وقول أجبري بليش شيء بوكي وحول يا رسول الله وان شيء رمتنا وان شيء بودي رجع مهاجرين تريروه جي أوبت هو مكاي كجي مادان نول بقبيل كيسي بمكة الدفاع يا أوبت كيسي رير كيسي يهنتدي مكة وكلها رير كيسي بالدفاع يا أنا جم قال هذا مكة دجان كي جماها أوبت كي رير كي جماع قريش كجد حميدي هدي وحان إسري هداد أنت يا سرعة قال هذا وشك تقريشة وحيس أرنا يا الحاطب إنكو إنك مدي هاي رير كيس الدرجة ده وقدر بعض أنت صوبان وجده بس إن أوبت كيجيس رير كيجي يبد باديان وإن بد جليان وبان وقدر الله هاي قال لما إيه جماعة منافق لمن إيه جماعة بل وحنا هاي مؤمن بانه النبي الله سرت هذا سببته مش شيء جينا تاسو ما يقول كلفته بس إن رير كيجا لين بد جليو أي قريش يقول حساب تمانه إرادان نكاسي أنكم ماشى نوجو جاي رير كيس الدرجة ده وقدر بعض وهكذا باتي سنين هكذا بنا مركب النبي قو آموسي صلى الله عليه وسلم لأن كان الذنب وين بو قال سرتي دولة الإسلام قو قال هذا وجود بيه مركز النبي قو آموسي إسلام مركي النبي قو هل كيف فديا آية في سورة أوائل سورة الممتحن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآية سورة أول كيجا آياتها أقوها الرئية آية إلهي تبارك وتعالى وحكو عديي إنه نكان حاطب وكمد يهي دول كمؤمنين إلهي النبي الرميسن إنه كمد يهي إلهي عديي إيمان كيسيبا إلهي عديي إيمان بالله مرخات فرينه مؤمن يهي مرقاس الله قد يقول لي يري كا إساقو كلي ما هنا بالمؤمنين تودن وحال أمر يا إني قال هذا ما دام قال هذا أو أيهين عدوغي إلهي عدوغي رسولك إنيسان أولياء كدغني أصحاب كدغني أو أي صاحب كدغن ما أنت لقى بلا بار بركاب النبي وعمر بويا يا عمر حاطب وكاس القرآن كبا إلهي تبارك وتعالى كل شافيي القرآن كبا عدي إيمان كيسا دنبك وقالينا إنه دب دنب وقلنا قلنا والله قدقي
لكن عمره واحد أجين يا أهل البدر بوها نكن والرب بدر وصدح بغل صدح يتوبن كينن إيه دجالك بدر قال قريب قشي وياه أهل البدر إنما تغنى درجة دودا وحال يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم يا أهل بدر واحد دونتان بالسمية إني قدم بيجيني والله دافع واحد دونتان سمية معنوه ما هن ذنوبته كلها معها نك بدرجة هدو قفنا بالليلي ودم بكدعنا سوء الخاتمة كل من مايه حسن الخاتمة كل من دون أمرك ودم بيس لأن مالنتها سيلاحي أقبلي مالنتي ترى مسلمين تأيري إيه قالوا لنا أي صوت دولين يكون الدجال كنت لقلين أي النبي قصار معركة بدر أين يسوق بتاع عير قريش دجالوا ما يجيدين لكن إلهي ما قدر دجال ماشي إنه كدعوا وحي لي مدن يطلب لي مدن ديتين دفاعيا يعني. حتى نزل جبريل عليه السلام مالما كمذا جبريل بسود دقويري ما تعودون أهل البدر فيكم يا محمد رجع دجال كبدر كالا غيب قلي أكتينا قيمة هاي كليهم بليشك وهالكين محات وأركتان مرقاس النبي يقول من أفضل المؤمنين مؤمنين تكون وفضل بدن إليهم أنو أرقنا برسولك يري مرقاس جبريل يري وكذلك ممن شهد بدرا من الملائكة سيدا سوك لأنكم هدان ملائكنا هاي ملائكتي دقال كبدر صودا دعدين نقالك قيب الشيء وحال الله أركا إليهم كوا ملائكته وفضل بدن تقدير وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته قدرك إلهي أولها من نقرن ما أنت قدرك نبيين أولها عليه الصلاة والسلام ما نقرن لكن رجع ساقرت قدرك رسولك قدرك نبي محمد بيقرتين مكانة دي سيبه قرتين وصلاني بدأ النبي كلها حجامة توبين بو النبي قوس توبين مالين تشتدن بديك النبي قال لك بوحيي عبد الله بن الزبير بن النبي قوي أول مولود في المدينة المنورة وياه زبير بن عوام بعد لي هو يدين وأسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير بن النبي قوي ديك يغاد مالا عندك أركن كسو آس حلو دي بي ديكي كبح جرك نبي محمد بالله دي بي لسواس صلى الله عليه وآله وسلم مركاسو dadki intuu iska eego meel cidna kolku wala baxay ayuu soo tartiibiyay tartiibta ma fahmaysan ya uu soo noqday hay Abdullah ibn Zubayr diigaygi halkaad ku soo qarisay balii sheeg markaasuu meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican ma ku soo qariyay buu markaasuu halkee markaasuu calooshayday buu waan cabay buu dhiigaaga dhiigii nabi maxamed dhulka inuu ku shubo waa u diiday taasuu la fadhiistay waa cabay markaasuu yidhi walima sharabtahu maxaad u cabtay buu ka yidhi waylun laka min annaasi wa waylun linnaasi minka buu ka yidhi waylun laka min annaas wa waylun linnaasi minka ya bna zubayr cidda aad dagaal ku qaadana way bacday cidda dagaal kugu soo qaadana way bacday buu rasuulku ku yidhi maxaa galay jirhkiisa maxaa galay kula tahay dhiiggii nebigaa galay jirhkiisa nebigana waxay yidhahdaan culammadu nebiyada jirhkooga wuxuu ilaahay geliyey 40 nin oo ahluljanna quwadoodaa ilaahay geliyey ninka ahluljannahaana 100 nin oo ragga adduunka u dhigmaa baa la yidhi bal xisaabi waa imsa nin 40 nin oo ahluljanna quwadoodii baa la siiyey nebiga nin ahluljannaana hee waxa uu la quwad yahay 100 nin oo ragga adduunka muusa calayhi salaam labadii nin ay saqabatay qibtiga iyo maaragtay kii reer bani israa'iil ahaa xabad feeru sidaa ugu dhiftay fawakazahu muusa faqada calayhi naftu way ka dhacday kii waa feer kaliya markaa buu nebigu yidhi cabdullaahi bn zubayrow cidda dagaal aad ku qaadana way ba'day cidda dagaal kugu soo qaadana way ba'day buu ka yidhi maanta laga bilaabaa
jirhkaagiina naar waa ka xoroobu rasuulku yidhi jirhkaagiina naar uu ka xoroobay khalaas fursad bay heleen iyaku fursaddaa way ka faa'iidaysteen yaa muslim innaguna fursad baan maanta haysanaa fursadeen haysanaa waxaan nahay ummaddii nebi maxamed baan nahay awalkeygii ma nihin bal aakhirkeygii baad moodaa inaan nahay aakhirkeygii kuwii u dambeeyey naxnu asaabiquuna wa naxnu alaakhiruun buu nebigu yidhi annakaa saabiqiina oo jannada ugu horgalayna annakaana ummadaha ugu dambayna buu rasuulku yidhi abuurkana annakaa ugu horaynay abuurka ummadahana annakaa ugu dambaynay oo ummaddii ummadaha ugu dambaysay baan nahay wa naxnu saabiquuna jannadana annakaa ugu horgalayna buu rasuulku yidhi maalinka qiyaamaha sayaأtii calى ummatii zamaan almutamasiku bidiinihi kalqaabidi calى اljamra zaman ayaa iman doona buu nebigu yidhi ummadayda ninka is yidhaahda diinta ku dhaqan oo diinta baro oo diinta ku camal fal oo diinta danee ninka is yidhaahda waxa uu la mid noqon doona nin dhamacayo dhamac dhimbil naara ma lahayn kara dhimbil naara nin hayuu la mid noqon doonaa markaa bay saxaabadu ku yidhahdeen zamankaas zamanka ninka sunnahaaga qabsan doona uu la mid noqon doono nin dhamac loo dhiibay dhamac lahayn kari maayo maanta sunnihii nebiga lahayn kari maayo waayo mujtamacii baad arkaysaa oo milmay oo ku milmay maaragtaana dadkii reer galbeedka aan milman saasaan isku dhex galnay sidaas bal qaarkeen waxay ku ducaystaan inay dibadaha u dhoofaan qaar maxay ku ducaystaan ya ilaahow hee labadii ciyaal fiisaan u xereeyey ilaahow iga sii kuwa sii qaad war saas isku dhex galay maanta zamankan maanta sunnihii nebi maxamed sal allahu alay wasalam haddaad tiraahdo aniga ubadkayga reerkaygu waan ku dhaqmaynaa mujtamacii kalea kaa qaaliba markaasay saxaabadu yidhahdeen zamankaas ninka diinta qabsadee ku adkaada ajarkiisa bal noo sheeg markaasuu yihi konton nin 50 rajulan konton nin ajarkoogaa ilaahay u qoray buu rasuulku ka yidhi nin saxaabiyaa sare kaco yidhi man konton annaka mise waa konton iyaka maya konton ininkaa buu ku yidhi rasuulku konton qarnigiina maanta aad joogtaan ajarkood buu qaadan doonaa waay zamanka iyaku diintoo fresh ay heleen fresh nebigay arkeen calayhi salaatu wasalaam malaa'igtoo soo degaysay arkayeen qur'aanka kolba aayad lagu soo dejinayey shareecadda u dhammaystirmaysay maalintii nebigeenna qur-aanka lagu soo dejiyey iqra baa ugu horaysay aayadihii qur-aanka ugu dambeeyeyna waxay culammadu ku sheegaan alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina carafay ku soo degtay carafa muddo yar kadibna nebigu adduunyada waa ka intiqaali doonaa awaakhir waa aayadihii ugu dambeeyey nebiga ku soo degay ka mid tahay aayaddaasaa la yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum ilaahay baa ku leh maanta diintiinnii baan inii dhammaystiray waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina dushiina ayaan ku dhammaystiray nicmaddu waa qur-aanka nicmaddu waa sunnada nebiga nicmaddu waa islaamnimada nicmaddu waa hidaayadda nicmaddu waa macrifada ilaahay innaga maanta muslimiinta marka nicmad la hadal qaado maxaan u haysanaa nicmad ya adduunyo nacam adduunyadu waa nicmad mu'minka adduunyadiisa xalaashu waa nicmad laakiin waxaad ogaataa iyadoo nicmada haddana waa fidnada adduunyadu وأما بنعمة ربك فحدث إمام قاضي عياض كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى آيات وحوك شيء وأما بنعمة ربك فحدث markii nabigeena aayada ay ku soo degtay ayuu nabigu saxaabadiisa ku yiri ana awwalu naas khurujan idha bu'ithu maalka qiyaamaha khalqigu dhulka ay ka soo bixi doonaan ka ugu horeeya dhulka ka soo baxay buu aniga khatibuhum idha ansitu maalinta bini aadanka la aamusin doono ka u hadlaya buu aniga shaaficuhum idha hubisu marka dadka la joojiyo cadceed halka ay naga gubaysa madaxooga sida loo dul dhigo 40 kun oo sanadood
banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay 70 xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalinta dadka u shafaacad qaadaya ee u wargeynaya buu nabigu waa aniga mubashiruhum idaa aisu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaareynaya buu nabigu waa aniga liwaa'u alhamdi biyadi yawm alqiyaama calanka mahadda maalinta gacanteedu ku jira calanka mahadda aadam calayhi salaam oo abul bashara ibraahim alkhaliil calayhi salaam oo nabi ibraahim aad garanaysaan abul anbiyaa labadoodaba ka soo qaad buu nabigu yidhi maalinka qiyaamaha calankayga hoos joogsanayaan buu calankaygaas walaalayaal nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa oo awlaadeenna han barno maxabada nabigeena ciyaalkeena han barno oo inakuna maxabada nabigeena han baranno oo salligiisa han badino oo sunnihiisa han qaadano waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiin in hadii laga cadhaysiiyo qaar diinta caayaya qaar malaa'igta caayaya qaar ilaahi abuuray afka ku taagayaan qaar nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaana ceeb u lahayn bay ku sheegayaan wallahi summa wallah maalin maalmaha kamida masaajidkii nabigeena nin munaafiqa intuu asxaabta sidaa u eegay qaswad baa lagu jiray qaswad ayuu yiri saas u eega saxaabadii kuwa quraan akhrinaya buu arkay yaa macshar alqurraa buu keen war ururkiinan quraan akhriska badan lahow marka cuntada la cunayna maxay niga cantuuga weyn oo niga cir weyn marka dagaalka la galana maxay niga fulaysan buu keen intaas uu yiri bas la soco marka dagaal la galayna maxay niga fulaysan marka cuntada la cunayna maxay niga cantuuga weyn oo niga cir weyn saxaabi baa hadal ka maqlay la'allahu umar inuu ahaa markii uu nabiga u sheegay markii ninkii munaafiqi wuxuu yiri de maxaa nabiga igu diri buu keen waan kaftamaynay uun waaska yar baa shaalaynayo waana soo daalayo hadalka sheegada waa lagu yar nastaaye markaa buu nabigu badilmay quraanka ilaahay soo dajiyay qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum qul waxaad ku tiraahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa quraaniga iyo rasuulkiisa ayaad ahaydeen kuwa ku dheeldheele ku jeesjeesa cudurdaarkaasi niga soconi maayo baa lagu yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen yaa macshar alquraa ereygu ku gaaloobay bal u fiirso kuwiinan ururkiinan quraan akhriska badan lahow marka la dagaalamayna maxay niga fulaysan marka cunto la cunayna maxay niga cir weyn labadaa kalmadood oo jeesjees uu u yidhi ayaa ilaahay caddeeyey ninkaas inuu gaaloobay khalaas ka ilaahay afka ku taagayna ka waran ka nabi maxamed afka ku taagana ka waran halkuu ka soo galaya diinta islaamka markaas ma arafnaahu liwaa'u alhamdi biyadi banka qiyaama buu nabi maxamed leeyahay calanka mahadda maalinta ana hayo ana leh hoos jooga waa maalintee waa maalinta khalqigu ciirciirayaan aadam bay u tagayaan noo shafaacad qaad dhibtan ana inigu wacan buu leeyahay jannadii dambigii aan galaad kaga soo baxdeen anigu ma lihi ordo qeyrkay u taga ergada anu maanta ma lihi nuux bay u tagayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii waa aniga ummaddeeda ku habaaray ducadeyda maanta la aqbali maaye ibraahim alkhaliil u taga ibraahim baa loo imanayaa saddex been baan adduunyada ku sheegee tii in laygu qabtaan ka baqayaaye ordo qeyrkay u taga muusa loo imanayaa muusena wuxuu leeyahay anu qof bini aadanaan dilay buu leeyahay ciise ibna maryam baa loo iman ciise cudurdaar sheegan maayo laakiin wuxuu leeyahay anigu ma lihi maanta markaasuu nabi maxamed uu yidhi anaa la iman doonaa yaa loo tegi doonaa banka qiyaama yowma aljamci laa rayba fiihi yowma ataqaabun yowmaidin tucraduun ina yowma alfasli kana miiqaata yowma yunfaku fi الsuuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaau fakanat abwaaba وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا مالك أسوير مالك تدباتد ويتالله مالك أسنبي محمد لو تقي وليه أنا لها أنا لها أنا لها كدعاء صلى الله عليه وسلم كبريدي صلى الله عليه وسلم
كشفاعتي صلى أقبل وأنيقا حديث كلا نبينا وكيلها نبي كستي إلهي الدنيا دوشيدا دعاء الله أقبل إلهي سيي نبي والب دعاء سي الدنيا كسو استعمالي أنا قلنا دعاء ذي مالك قيامها خلق يودك تكون في عدونا برسول بيدي كصلي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالين كاسو نبي محمد إن حصوصنا يا إن كنا ما تسنه سبان اللوني دقن كي سبان اللوني شريعة سبان اللوني بل نبي قال الله قد إذا دل يرتو حيوار كان إن يتهدي بسعود نمو حيوار كان متأخر رجعي دب السعود دب النقد بوار كان ماي من هذا ظهر وسعته أيين دب السعته ولا كالأرك دونا فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار سدح دلنيرو متعلمين أو دلنيرت جامعة لها دكتا أيا أولي دون وتا أو ضدك بدها كشقيستو ناخوضا أي كوير هذا ما أنت دون هذا نجا كره بدوين تنور عدل أو محاتهين صياحين دل حيستيال بناه ومثل مركز دونتي كوهشيين يفولين دونتو بريقا واتي كسعون جرت بريقا ضبيلها شراع على قوة جري حق ضبيش لو يعب جري هي بربريا يا غانا يا ريجبوتي الدنيا لأن مركز صدح دي دليرتي odagii bay wareysteen ku yiraahdeen adeer kani waa baylod kana waa engineer kana waa dhakhtar adigu laakiin yaraantaadi maxaad baratay markaas anigu sida loo dabaashaa bartay ku qosqosleen waxay ku yiraahdeen dayacta nisfa umrak waxasi ma tacliim ba yaraantaadi waad kaga soo ciyaartay adigu markaas la yaabay sida ugu jazzasan kan waa baylod ديارته كحية كان هو دكتور هاي كان هو مهندس يبني العمارات قصور بودسا هذا دبال مشقة وتعليم بقى مركز ويرجع ربي مركز بريجي أي وكقر صومي بدوينتي أي جوجان أي بدوي كعدة مركز ويك عدة بدو ساس وصل بيس مركز سوداء عندك لا يشاء شيء بوسكر دقيقة مركز بيجي كسر جستو وحيري doontu gacanteedu kuma jirto hal mar saddexdii dhalinyaradii maxaa bedilmay nin dhalinyaro ah oo noloshii hadda ay u bilaamayso jaamacadii ka soo qalin jabiyay oo badweyntii isagoo maraya la yiri markabku u qarraqmay bal ka waran markaas hal mar kaliya dhalinyaradii wajigii baa bedilmay ilintii baa ka daadatay way qayliyeen markaasuu ku yiri markaan nigu yiri yaraantaydii dabaasha ayaan bartay haddaad igu tiraadeen cimrigaagii yaraanta waad soo dayacday anna waxaan ilaahay maanta cimrigiinii baad dayacdeene adigana beeloodnimada ku bax adna injineernimada ha ku badbaadiso adna dhakhtarnimada ku badbaad anoo dabaashaydii baan bilaabayaa buu yidhi waa mithaal yani haddaad u arkaysid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa iyo ku dayashadiisa aan u arkayna dib u socodnimo inaan dib u noqonayna haddaad u arkaysid maaha waxa xaqiiqadu maanta ay caddaad doonto maalinta aad adduunyada ka intiqaashid ayaa la garan doonaa keebaa dib u socod ahaa keebaa hore u socod ahaa lidaalika sunnaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan ku fara adeegaynaa alxamdu lilah ininku dadkiinan masjidka soo camiray dadkii khayrka jeclaa baa tihiin dadkii diinta danaynaya baa tihiin dadkii nebi maxamed jeclaa baa tihiin runtii waxaad u fadhidaan masjidka waa jacayle ilaahay iyo jacayle nebiga aad u qabtaan maalin ayuu nebigu arkay asxaabtiisii markuu nebigu weysaystay biyihii jirhkiisa ka daadanayey ayay gacanta hoos dhigteen markaabay isku masaxayeen oo ka barakaysanayeen sala allahu calayhi wasalam markaabuu nebigu yidhi maxaa sidan u samaynaysaan ii sheega ile nebiga wax jirhkiisa wixii ka baxoo dhan saxaabadu dhulka uma ogolaanayn tintuu iska xiiray way qaybtameen qandhuuftuu tufay gacan nin bay ku dhacday wejiguu marsanayey kaa qandhuufta nebiga haleelay ee wejiga marsaday mid baa dul joogo isagana kasii marsanaya dharkiisa ku masaxanayay
maradii nabi maxamed uu xidhay saxaabigii yidhi nabi allow ma axsanahaa alla maradu qurux badana waan u baahanahay isii waan ku siiyey buu nabigu yidhi ii kaadi aqalkii buu nabigu ku noqday intuu soo saaray go'i ayuu laalaabo ninkii buu siiyey saxaabadu ninkii way qabsadeen wallaahi ma axsantay bay ku yidhahdeen maad wanaajin waad arkaysa nabigu marada inuu u baahnaayo markii hadiyadda loogu keenayba waa kii aqalka galee soo xidhee maxaad u weydiisatay nebiga waad ogtahay nebiga wax lama weydiisto haddii la weydiistana ma yaqaana nebi maxamed wallaahi waxaan u weydiistay inaan dhar ka dhigto ku xaragooda igama yahayn waxaan u weydiistay inay maradaasi kafan noqoto kafan maadaama jirkii nebi maxamed uu taabtay kafan baan ka dhiganayaa buu yidhi taasay nebiga uga barakaysanayeen maradiisii qandhuuftiisii biyihii jirkiisa ka daatay ayay ka barakaysanayeen saxaabigii markii biyihii nebiga ka daatay hoos dhigtaa gacmaha markaa buu nebigu ku yidhi maxaa inagu ajburay inaad biyaha jirkayga ka daato aada isku masaxdaan markaasay ku yidhaahdeen xubullaahi wa rasuulihi jacaylo aan u qabno ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa sidaa u samaynayna bay ku yidhahdeen markaa buu nebigu yidhi dhegaysta haddaad ilaahay iyo nebiga aada jeceshihiin oo doonaysaan inaad jeclaataan markaad sheekaynaysaan buu nebigu yidhi run ku sheekeeya markaad layna aaminana amaanada ilaaliya buu nebigu yidhi haddii lagu aamino amaanada ilaali waa inaad noqotaa amaano xaafid haddaad sheekayn run ku sheekee haddaad ballan qaadana ballankaa ka bixin buu nebigu yidhi ilaahay nebi maxamed inaad jeceshahay waxaa u daliila akhlaaqdaada saad ula dhaqaysid waalidkaaga saad jaarka ula dhaqmaysid saad saaxiibada ula dhaqmaysid saad walaalaha ula dhaqmaysid saad muslimiinta ula dhaqmaysid nacam idaa kaana calayka arbaca buu nebigu yidhi afar sifa haddaad leedahay adduunye kaama tegin buu nebigu yidhi xadiis kale weliba xadiiskaas sanadkiisu waa daciif laakiin lilfadaa'il waa la isticmaali karaa afar khasladood buu nebigu yidhi haddaad leedahay khayrkii adduunyada yaalle kaama tegin waad haysataa sidqu xadiiin haddaad tahay nin run sheega wa xifdu amaanatin haddaad tahay qof amaano xaafida wa xusnu khaliiqatin haddaad tahay qof dabeecad wanaagsan haddaad tahay wacifatun fii maطcamin xalaal mirte afartaas sifo qofka mu'minku hadduu leeyahay khayrkii adduunyada yaallay iyo wanaaggii adduunyada yaallay kama tegin buu nebigu yidhi waxba kama tegin wax walba u gaadho u haystaa weeyaan run ku sheekay haddaad sheekayn run ku sheekee haddii lagu aamino amaanada iska ilaali maanta muslimiinta amaanada maxay u arkaan qisa dhacday ma nigu soo daraa so waa nigu dheereeyey nin baa nin lacag u dhiibtay waa qiso dhacday wadanadeena inay ka dhacday dad kale ma dadkeena dhexdiisa markaasuu yidhi meel baan u baxayaa baadiye baankana aanu account kuma lihiyo nin iska waxaan ahay wadaadee lacagta ii xaji buu ka yidhi waa qiso marxaba uu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo maqaaxi weyn intuu furtay ka shaqaynaya maqaaxidii oo birqaansan oo shaqada ku birqaansan markaasuu salaamu calaykum calaykum u salaamay casarkiiba haddana u soo noqday salaamu calaykum waa ninkoo mashquulsan cishaayigii buu u yimid wuxuu yidhi war dee maxaad ii dhaafdhaafi buu yidhi lacagtii berigaan kuu dhiibtay yaan u socdaaye lacagtaadii waa taa shaqaynaysa waa taa shaqaynaysa war maxaad leedahay lacagtaadii waa taa shaqaynaysa buu war lacagtu ammaanay hayde shuraka manu ahayn ammaanaan kuu dhiibtay waan ku aaminay walaa lacagtaydii si markaas oray soo dacweyn makhalkan lacagta lagu qaado maqaaxiyahana dushiisa wuxuu ku qortay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aayaddaa meesheedii ma la dhigay war ma la dhigay ma la dhigay jaadlayaasha kama aragtin tawakaltu cala allahi wakafaa billahi wakiila miis jaad iyo maxaa isku keenay aayadda qur-aanka xataa jaadlayaashaad ka dul arkaysaa innaa fataxnaa laka fatxan mubiina qur-aanka meeshiisii lama dhigin hadduu qofku ammaano lahayna buu nebigu yidhi qofka ammaano aan lahayn iimaan ma labuu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey jacaylka ilaahay nebiga aad u qabtaan wuxuu ku noqonayaa dhab maynii sheegaa markaad sheekaynaysa run ku sheekeeya markaad ammaano laynii dhiibtana ammaanada xafida haddaad ballan qaadana ballanka buuxiya buu rasuulku yidhi markaa masaajidkaa soo camirnay iyo khayrka aan dhegaysanayno
waxay naga tahay waa diin jacayl alla jacayl nebi jacayl bay naga tahay sidaa daraaddeed zamanku waa zaman adag waxaan ku baqanaynaa marka xagga ilaahay fafiruu ila allah xaaladdu waa dhaweeto waad argayseen adduunka xaalad yar baa soo martay oo ilaahay waa inaga dabaylaha ilaahay naga raaciya dabaylaha wadannadu xanuunka hayana allaha ka qaada amiin dhahada laakiin dad badan way argagaxeen wadano badan oo muslimiinana masaajidii bay quful ku jebiyeen yaa muslim hadday dhibaata ay timaado halkee buu nebi maxamed ku urdu jiray idaa xasabahu amrun fazaca ila asalaa hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo salaad buu nebigu gelayey xataa hadduu arka nebigu roob dabaylo wata maskiidku soo galayay uu ducaynayey ilaa uu roobkaasi uu dhaafo dabayshu ay rafacanto nebigu maskiidka kama soo baxay istaciinuu biالصabri والsalaa hadday dhibaato adduunyada dusheeda muuminka la soo daristo inuu argagaxo ma aha waa inuu yidhahdo annaku ilaahay baan haysanaa ducaan haysanaa qur-aan baan haysanaa xidhiidhka ilaahay baan haysanaa daawuu mardaakum bisadaqa kiinaynaga bukoodana sadaqada ku duwaya buu rasuulku yidhi acmaashaasuu ilaahay rasuulkiisuna amrayaan daynaan diinta ilaahay qabsanno ku sugnaano zamankan waa zaman adag waxaa laga yaabaa zamanba zamanka ka dambeeyana in xaaladdu ay sii adkaani doonto in fitantu ay sii ziyaadi doonto ayuha almuslim waxaad ku baxsataa marka ilaahay xaggiisa u baxso insha allah dhahada yaa u diyaar inuu xagga ilahay u baxsado fafiruu ila allah ilaahay baan ku ordaynaa xaggiisa waxaa kaloo ku ordaynaa diinta ilaahay dadaalkeygaan ka shaqaynaynaa ijtimaaceennii baa inoo soo dhow bisha sebtembar aakhirkeyga ijtimaac la rajeynaya in la qabto haddii alla yidhaahdo dee dadaalka diinta insha allah dhegta keliya diinta siini mayne diinta qawlan wa ficlan wa maalan wa waktanba diinta waan siinaynaa yaa u diyaar waa ilaa haddii kale waxaan la mid noqonaynaa ninkii reerka ku soo hoyda martiqaadka loo sameeyey halkii neef la qalayna uu arkayay oo la karinayo markii loo soo dhigayna labadii dhagood baa loo soo dhigay maa la marti qaaday ninka hormaa la marti qaaday dee sida ayaana ka dhigine bal insha allahu tacaala ijtimaaca inaan ka soo wada qayb galno oon ilaahay dartii 4 bilood 2 bilood 40 cisho hadba intaan waqti haysana inaan ilaahay dartii u bixinno ayaan niyoonaya bal gacantaa taago masaajidkoo dhanba allah ina barakeeyo waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan muddadan la baxayana nusuus ku timida ma jirto laakiin waa wasaa'ilu dacwa sida madaaristu wasaa'il u leedahay tacliimtu wasiilay leedahay dhakhtarnimada barashadeedu wasiilay leedahay kadalika dacwaduna wasiilay leedahay wasaa'ilu dacwa waxaa ka mid a aalaadkan imika anu berigi hore waan diidi jiray laakiin beryahan waa igu qasabteenoo waxaa layga dhaadhiciyey inay tahay min wasaa'il dacwa aaladan haddaad u ogolaatay wasaa'ilu dacwa jamacad ilaahay dartii u socota oo maalkoogii bixinaysa oo kalba tuulad degaysa oo kuwa qayalaya u tegaysa labadaa wasiilatee baa tii nebiga u dhow bal ii jawaabadee tee socota ta aaladanaa socota mise tan dadka socdaa sunnii nebiga u dhow lidaalika socodka lagama maarmaayo bal socodka wax bedelaya xaraka lahaa baraka hadday biyuhu socdaan biyahaasi iyakuna way daahir bay noqonayaan ciddii istiraada ka intifaacna iyagoo nadiifay u tegayaan laakiin biyuhu hadday fadhiistaan way wasakoobayaan carfigoogaa isbedeli midabkoogaa isbedeli dhadhankoogaa isbedeli dabeedna biyahaasi waa ka guur weeyaan socodka ayay ummaddani qiimo ku leedahay saafir tajidu ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nasabi falidalika in sha allah ijtimaacan aan ka soo wada qayb galno maalkeenna waktigeenna ilaahay diintiisa inaan ku bixinana wada niyooda mar kale haddana aye maxaa yeela dembigeenna allah ha dhaaf dembiga waalidiinteenna allah ha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allah ha shaafiyo mawtaadkeenna allah ha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badanoo walaalaheenna ayaa mar walba noo soo duceey yidhahdee ilaahay nin walba muraadkiisa oo macsiye lahayn gacanta midig allah ka siiyo dad baa xanuunsan ilaahay caafimaad sariica ha siiyo dad baa kurbaysan kurbada allah ha ka qaado dad baa shaqo doona shaqo xalaal allah ha siiyo dhalinyar badanoo guurdoonaa jirta guur xalaal allah ha siiyo dhallinyaradeenna gabdho iyo wiilal ba allah inoo asturo dalalka muslimiintana meelo joogaan muwaafiqiin midnimana allah ha siiyo dalkeennan aan joognana amnigay allah inoo adkeeyo aamiin dhahada
amniga allah inoo adkeeyo amniga allah inoo adkeeyo qulubta muslimiintana allah mideeyo sallallahu alayhi